Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawaada Garsoore FX Academy oo aad horey ugu barateen isbuuc walba bilowgiisa inaan falanqeynta isbuucan idinla soo wadaagno ama lacagaha aynu ka filayno isbuucan in aan ka faa'iideysano idinla wadaagno. Sidoo kale setup-yada iyo signal-kana aan saad ogtihiin aan kusoo dirno groupka aynu ku leenahay Telegram-ka si ay ardayda ugu faa'iideystaan. isbuucan insha Allah waxaynu fiirin doonaa dhowr lacag oo ay ka mid tahay CAD CHF. waxaynu ku hormari doonaa lacagta loo yaqaano CAD CHF maadaama ardayda intooda badan codsigooda uu ahaa CAD CHF in aan soo falanqeeyo si ay fikirkooda iyagana markii ay soo falanqeystaan ay ugu dabaqaan kalsoonina ay ugu helaan maadaama the more aad samaysid taxliilin fara badan haddii aad aragtid qof kugu fikir ah ama meeshaad lacagta u dirto oo kale isagana u diraayo kalsoonidaada ayaad dhismayso oo gacantaadii waa ay fariisanaysaa skillkii waxaad fahmaysaa inaad wax badan ka fahantay. okay sida aan la socno mar walba oo taxliilin la sameynayo waxaa laga soo bilaabaa time frame-ka weyn ee loo yaqaano higher time frame meesha laga qaato 4 hour-kana entry-ga. waxaa taxliilinta lagu sameeyaa daily-ga, weekly-ga iyo monthly-ga si aad u ogaato jihada saxda ah ee markaas lacagta ay ku sugan tahay. waxaynu tagi doonaa hadduu ilaahay qadaro 1 month ama monthly saa u naqaano si aynu u ogaano lacagtan waxa ay ku sugan tahay. CAD CHF sida aad u jeedaan amaba aad la socotaan CAD CHF waxa ay ku jirtaa wax loo yaqaano ranging ama sideways wax loo yaqaano ayay ku jirtaa. sida aad u jeed markii bartan trade line-ka aad soo saaratid ilaa iyo bartan aad keensatid waxaa kuu muuqato lacagtan in saddexdii jeer ay bartan soo taabataba ay kasoo aaday sal aad u qurux badan oo ugu dambeyntiina ay gashay consolidation ay gashay. okay foxkeena waxaan saari doonaa hadduu ilaahay idmo qeybta tan ee boxka inoo geliyey ayaan saari doonaa qeybta tan ayaan saari doonaa insha Allah si aynu u ogaano waxa meeshan ka dhex dhacaya. okay aynu zoom garaysano then waxaan sameyn doonaa qeybta ranging-ka ku jirto ama consolidation ku jiro ayaan waxaan sameynaynaa waa calaameysanaynaa then trade line ayaa labada dhinac ka saaranaynaa insha Allah. saad u jeedaan trade line-ka shuruucdiisa waxay ahayd 1 touch 2 touch iyo ka badan inuu kuu sameeyo isku kaa qabto as better inaad ogaatid markaas ayuu trade line-kaaga yahay mid active ah. anyway caawa waxaan rabnaa inaan isku dabaqno marka trade line-ki iyo maxaa la yiraahdaa aan isku isticmaalno toolisyada ugu fiicnaa ee ku jira trading view-ga uu ka mid yahay VIP-ka si aynu u ogaano dhaqaaqyada suuqa uu sameynayo. okay sidoo kale trade line-ki aan sii wadano oo color-ka inooga bedel oo nooga dhig color-ka noocan barta tan suuqa maxaa uu ka sameynayaa si aynu u ogaano. okay sidoo kale bartaas inoogu qabo trade line-keena. okay markii aan trade line-ka aan sawirano saad u jeedid meeshan triangle-kan aynu ku sawiranay ama trade line-kan aynu ku sawiranay saad u jeedo waa uu ku dhex ciyaarayay oo suuqa bartan ama price-ka bartaas ayuu u dhaxay ugu dambeyntina waa uu soo jabsaday. markuu jabsadana suuqii waxa uu sameeyay retracement ayuu sameeyay. okay retracementigan uu sameeyay bal aynu ogaano retracementigan oo monthly-ga meesha uu ku aadan yahay si aynu u ogaano sida caadiga la isla yaqaano. meeshan waxaa nooga muuqata structure oo markiisa hore ahaa structure support ah oo hadda lacagtina ay sameynayso ama price-kii uu sameynayo in uu kusoo sameeyo amaba uu ka dhigo maxaa la yiraahdaa retest uu kusoo sameeyo. waad u jeedaa way soo daadata lacagtii kadibna way laabatay oo meeshii hore support-ka ku ahayd ayay waxay kasoo dhigaysaa isku bedelaysaa support-kii hore ayaa waxa uu isku bedelayaa resistance ayuu isku bedelayaa support-kaagii hore sida aad u jeedid. sidoo kale lacagtii dhaqaaqan ay sameysay waxaan ku ogaan doonaa VIP-ka meesha dhaqaaqan uu ku aadan yahay swing high to swing low ayaan sameyn doonaa. lacagta waxaad u jeedaa inay ku aadan tahay golden zone area oo ah 0.618-ka hopefully-na sida caadiga ah lacagta waxaa laga soo celin jiray 3 ama 4 lambar oo caan ah oo ay ka mid yihiin 0.38 0.5 0.618 iyo 0.78
intooda badan lacagta waxa ay ka laaban jireen 0.618 ka ama golden zone areaha sida aan isla ognahay. okay bal hadda aynu calaamaysano meeshan waxaa nooga muuqdo lacagta tan in ay maxaa la yiraahdaa ay candlekan meesha uu joogo oo almost ay soo retest garaysay golden zoneki aynu isku diyaarinayso meesha ay aadi doonto. okay time frame ka weyn ayaan waxaan ku dabaqi doonaa time frame ka yar si aynu u ogaano xaaladda marka tan ay ku sugan tahay lacagtan anagoo calaamaysanayno bartaas golden zoneki ahaa ee lacagta inoo soo retest garaysay. okay cafwan weekliga aan aadna marka weekliga aan aadna si aan u ogaano xaaladda saxda ah ee ku jirto lacagta CAD CHF maadaama aan monthlyga soo taxliilinay monthlygi waa soo taxliilinay bal inta aynu isla fiirina marka trade line-adii aan soo sawirano waad ujeedaa soomaan si qurux badan ayay noogu diyaarsan yihiin oo kandhaladina cirifkooda si fiican ayay u haystaan. anyway lacagtu inta waxay ka samaysaa baatan aad u qurux badan in baatan loo yaqaano then waatana si fiican ayay trade line-ka dhexdiisa waxaa waaye lacagtii ugu braceka uu ugu laabtay then waa la jabsaday braceki isla same ayay inoo sheegaysaa monthlygi iyo weekligi isla same ayuu noo sheegayaa oo lacagtii triangle-kii aan u sameynay in lasoo jabsaday then lacagtii ay laabatay ee kusoo laabatay maxaa la yiraahdaa barta tan oo haday aan soo calaamaysano oo ay ahayd golden zoneki oo monthlyga ahaa. okay saad u jeedid golden zone sida caadiga lagu yaqaano waxay ahayd lacagta markii ay sameynayso bullback ama retest ay sameynayso ayaa waxaa waaye retracementiga impulsiga dhaqaaqay correctionka ayaan ku ogaanaynaa ama lugta dambe oo selka ah ama imaan doonto si aan u raacno haddii ay inoo waafaqaan rolliskii aan ku qaadanayna ama intriga aan kaga raadsanaynay. sida caadiga structureka markii la sharxayo waxaa shuruucda ahayd markii uu trade line-ka laba trade line markii uu kuu samaysan yahay tusaale ahaan lacagtaadana ay barta tan u dhexaysa labadan meel waxaa loo yaqaanaa ranging ama sideway then markii uu soo jabsado waxaa muhiim ah inuu retest kusoo sameeyo meeshii hore supportka ku ahayd si ay iskugu bedasho resistance cusub. okay marka hadda bartan sheekadaas ayaa ka socto saad ujeedaan oo trade line-keeni waa lasoo jabsaday then waa lagu laabtay oo barta tanna waxay kaga jirtaa lacagtii waxa loo yaqaano haddii aan sawirano bal fiiri almost waa la jabsaday trade line-kii oo kor ayaa loo jabsaday oo lacagtii waxay aaday kor ayay aaday waad ujeedaa kor ayaa loo jabsaday trade line-kii inoo calaamay bartaas inoogu calaamay lacagteeni waa la jabsaday waad ujeedaa trade line-keeni kor ayay u jabsatay then waxaynu ka filaynaa lugtan hadda socto meesha ay kusoo laaban doonto si aynu u ogaano marka waxaan tegi doonaa lower time frame-ka ka hooseeya weekliga oo dailyga ah si aan u ogaano iyadana dailyga waxa ay noo tilmaamaysa sida laisla ogyahay weekliga monthlyga dailyga waa directionka weli dailyga ayaad waxaa ka heli doontaa directionka saxda ah ee markaas suuqa uu ku tilmaamayo. mar walbana waxaa muhiim ah tilmaanta suuqa uu ku siiyo in aad ku dhaqantid mar walba waxaa muhiim ah tilmaanta suuqa uu ku siiyo in aad ku dhaqantid. okay muxuu suuqa na tusayaa suuqa muxuu na tusayaa mar walba backtestingka aad badisid waxaad heli kartaa dhaqaaq walba sida uu ku imaado saad ujeedaan meeshan waxa aad u qurux badan ayaa ka dhacay waad ujeedaa ascending channelkaas wuxuu sameeyay ascending channel qurux badan then waa uu soo jabsaday dhaqaaq fiican ah imaaday then haddana waxaad ujeedaa trade line-kaaga update garayso oo waxaa waaye si fiican u update garayso any time frame walba aad imaadid trade line-ka noo update garay then waxaad ujeedaa trade line-kaagi in la jabsaday kadibna retest lagu sameeyay meeshan sida nooga muuqato trade line-keeni waa la jabsaday si fiican u fiiri trade line-keeni resistancega noo ahaa lacagtii waxay samaysay way jabsatay way kusoo laabatay kadibna kor ayay aaday aynu ogaano meeshan ay kusoo laabatay golden zone area ma ku aadan tahay sideen ku ogaaneynaa waxaan ku ogaaneynaa swing low to swing high ayaan saareynaa then waxay ku aadan tahay lambaradii caanka ahaa ee aan isla naqiinay ee lacagta laga celin jiray waataa lacagtii kor ayay aaday then waxay kusoo laabatay ee soo retest garaysay 0.38ka kadibna lacagtii kor ayay aaday sida caadiga ah almost targetkii koowaad waa ay ku dhacday oo isbuuc hore qofkii qaatay waa uu ka faa'iidaystay oo 0.17 next waxay usii socotaa targetkii labaad bal waxaan ogaaneynaa targetkii labaad ma kandhalada iska dheeraaday unbay ku aadi doontaa mise waxay sameynaysaa maxaa la yiraahdaa nasasho then ayay kor aadi doontaa sida caadiga waxaa ujeedaa rejection in inta laga soo sameeyay okay
rejection kan sidoo ku imaaday rejection kan ma double top baa sameeyay I hope inuu double top uusan sameynin saad u jeedid double topka markii aad calaameysatid weli waa uu ka sareeyaa bal si fiican u fiiri double topka waa kana candlekan waa uu jabsaday almost double topkaagina waa la jabsaday haddana waa la soo laabtay rejectionkii waxaan ogaan doonaa marka sheekada meeshaan ka socota waxaan ku ogaan doonaa lower time frame-ka ayaan ku ogaan doonaa sidoo kale dailyga maxaa inooga muuqda sidoo kale dailyga waxaa inooga muuqda suuqa structure-ka kan in supportka ahaa resistancyga ahaa la jabsaday aynu calaameysano barta tan waa la jabsaday saad u jeedid suuqa waxaan ka filaynaa marka sida dabeecada lagu yaqaano suuqa waxay ahayd haddii resistance la jabsaday inuu isku bedelo support okay saad u jeedid marka resistancyga kan aynu ka bedelano maxaa la yiraahdaa colorka si aynu ogaano xaaladda ka jirta suuqa waxaad u jeedaa inuu sameeyay impulse correction kadibna impulse uu sameeyay haddana waxaan ka filaynaa another correction ayaan ka filaynaa insha Allah bal aynu fiirina marka lower time frame-ka ka yar aynu fiirin saad la socotid marka aad u jeedid meeshan rejection ayaa kusoo dhacay candlekan oo hoos ayaa loo soo push garay markiisa horena buy ayuu ku socday oo cadaadis selleriska ugu imaaday ayuu hoos usoo laabtay then waxaan ogaan doonaa bartatan oo aan ku calaameeyay in ay tahay barti markii hore suuqa u ahayd resistancyga then waa la jabsaday suuqa maxaynu ka filaynaa suuqa waxaynu ka fili karnaa in uu sameeyo markii aan calaamaysanayno hoos aan rabno inaan ogaado retracementigan meesha uu kusoo laaban karo waxaad u jeedaa bartatan inay ku aadan tahay I hope markii kan aan iska tirno kan wuxuu noogu aadanaa key weekliga aan kusoo samaysano waaye dib aan u samaysan doonaa saad u jeedid markii high swing high to swing low aad saaratid bartan waxaa kaaga muuqato 0.786 in uu suuqi almost soo dhaafay oo u socdo 0.618ka then time frame-ka yar ayaan ku fiirinaynaa si aan u ogaano rejection kan yaroo socda meesha uu ku dhamaan doono si aan u ogaano okay naga tir marka vip-keena trade line-keena iyo vip-keena ayaan isku wadanaynaa saad u jeedid cafwan okay marka waxaad nageysaa 4 hour si aan u ogaano xaaladda meeshaan ka jirto 4 hour aan tagno 4 hour-ki aynu tagno then zoom-ka inoo weyneeyay then 4 hour maxaad u jeedaa si fiican u fiiri 4 hour intooda badan waxaan ku iraaday 4 hour waxaa laga qaataa entry ayaa laga qaataa trade line-kaagina si qurux badan ayuu kugu samaysan yahay almostna waxaa waaye si qurux badan ayay taxliilintii isku haysataa oo way isla socotaa isla jaan qaadaysaa saad u jeedid waa la jabsada waa lagu soo laabtay kadibna kor ayuu aaday suuqi maxaad u jeedaa bartatan tusaale ahaan suuqi wuxuu sameeyay impulse correction impulse haddana waxaan ka sugaynaa impulse kale kadibna correction uu sameeyay correctionkaas barta uu kasoo laabanayo waa inay calaamaysan tahay sidoo kale waxaa inoo calaamaysan candlekan rejectionka lagu sameeyay ha iloowin oo maskaxdaada ku hay candlekan meeshaan rejectionka looga soo sameeyay in ay tahay 0.618ka golden zone-ki monthlyga ku aadanaa sidoo kale dailyga waa kana structure-kiisa caadiga dailyga waa la jabsaday kadibna dailyga waa lagu soo laaban doonaa oo retest ayuu sameynayaa markuu sameeyay kadib ma buy ayuu aadi doonaa ma sell ayuu aadi doonaa hadda ayaan isla ogaanaynaa okay bal aynu saadaalina marka aynu isla fiirino okay markaan isla fiirinayno meeshaan waxaa u jeedaa trade line-kaaga adoo isticmaalaya si fiican u fiiri bartan structure-ka kan waa look oo maxaa la yiraahdaa dhaqaaqday oo si fiican u dhaqaaqday oo lugtaas ah buy then lugtii maxay soo samaysay laabasho ayay soo samaysay oo waa ay soo laabatay ilaa iyo bartan ayay soo laabatay laabashada ilaa bartan ay soo laabatay maxay ku aadan tahay si aad u ogaatid golden zone may ku aadan tahay waxaad sameynaysaa vip-ka waxaad leedahay swing low to swing high ayaa leedahay swing low to swing high waxaad u jeedaa soomaan then trade line-kaagi iska tir trade line-kaagi cabiro soo qaado dhinaca nooga soo dhig marka trade line-ka inta noo dhig waxaan rabnaa inaan wax ku ogaano vip-ki kusoo celi marka waxaad dhahdaa swing low to swing high markii buy loo taxliilinayo qaabkaas ayaa loo saaraa vip-ka swing low to swing high ayaa vip-ka loo saaraa okay saad u jeedidna lugtan dhaqaaqeeda waxa ay la mid tahay trade line-kan cabirkiisa la soco okay waxaad u jeedaa dhaqaaqi vip-ka inta si fiican u fiiri vip-ki waa kana bartan aan dhigo waxaad u jeedaa swing low to
swing high ayaan soo saaray, swing low to swing high ayaan soo saaray, meeshaan ugu sareyso iyo meesha ugu hooseyso. then dhaqaaqi lugti intuu nasasho kusoo sameeyey, wuxuu nasasho kusoo sameeyey 0.318 ka oo ka mid ahayd lambaradii suuqa laga celin jiray. then suuqi waa la celiyey oo bartaan ayuu ka dhaqaaqay. fiiri si fiican u fiiri, bartaan ayuu ka dhaqaaqay. waa ujeedaa soomaan, lugtaan lug la mid ah ayaa laga rabaa inuu soo sameeyo, lugtaan lug la mid ah ayaa laga rabaa inuu soo sameeyo. then maxaad ujeedaa targetkii labaad in uu isku diyaarinayo inuu kusoo dhaco markii hadhow lugta la cabirayo. sideen ku ogaanaynaa marka, sideen ku ogaanaynaa targetkan? ilaan lugta iskama baxayso oo suuqa buy iskagama soconayo, wuxuu u baahan yahay suuqa impulse correction, impulse inuu ku tago. okay, hadda waad ujeedaa soomaan targetka si fiican inuu ugu aadan yahay. waxaa la rabaa suuqa qaabkaas inay taxliilintaada iskugu kaa qabato adoo higher time frame kasoo bilaabayo ilaa iyo lower time frame imaanayo. okay, bal aynu cabirano meeshaan waxa ka dhacay marka si fiican u fiiri. waxaan u cabiranaynaa sell ahaan maadaama lasoo rejection gareeyey oo hoos loo soo celiyey. waxaan fiirinaynaa markii sell la sameeyey meesha laga celiyey ee buyga ka aadi doonto. isleeyaynaa soomaan. okay, bal fiiri sell ahaan aynu u fiirino. sell markii loo saarayo koraa laga soo saaraa, intaana saarin kahor vipka naga tir. targetka waxaad ujeedaa bartaan inuu yahay ay weli zonkii aan weekliga iyo dailyga kusoo sameysanay ay ku dhex jiraan. okay, bar vipkan aan iska tirno marka, vipka kan aynu iska tirno, vipka kan aynu iska tirno. okay, vipka mar labaad inoo soo qabo, waxaad ku cabirataa si fiican u fiirso meesha hadda laga celiyey si aad u ogaatid haddii buy aa u saaraysid targetka inuu bartaan ahaado waayo. waxaad sameynaysaa barta tanaa saaraysaa, mar walba lowga ugu dambeeyaa saaraysaa iyo meesha ugu sareyso. si fiican u fiiri. sidoo kale waa kana lowgan lowga ka hooseeyo waad ujeedaa soomaan, laakiin kan ayaad saaranaysaa si aad u ogaatid. then waxaad ujeedaa 0.5 ka in laga rejection gareeyay, ujeedaa barta tan ama 0.38 ka inuu soo dhex jabsaday kadibna laga celiyey oo suuqi buy ka aaday. ujeedaan si fiican u fiiriya. then suuqi wuxuu u socdaa inuu barta tan aado maadaama inta laga rejection gareeyey inuu barta tan targetkiisa koowaad kasoo dhigto, targetka labaadna bartaas ay noqoto. marka ma dhaafayo structurekan insha allah, waan ogaan doonaa waxa meeshan ka dhaco. marka sell ahaan aynu u cabirano, sell ahaan aynu u cabirano si aan u ogaano dhaqaaqan. fiiri inta kasoo bilow ilaa iyo meeshaas ugu hooseyso keen. si fiican u fiiri, bartaan kasoo bilow ilaa iyo meesha ugu hooseyso keen. fiiri meesha target 1 iyo target 2 ma zonkii dailyga aan ku samaysana ma ka dhex baxsanta? waa may. waxaa la rabaa suuqaaga taxliilintaada inay isku kaa lahaato. fiirso si fiican u fiiri. hadhow marka haddii aan sal u qaadanayna intaan ka qaadanayna, waxaan ka qaadan doonaa barta tan marka uu soo jabsado kadibna uu barta tan noogu laabto uu inta naga siiyo retest. selka ugu fiicanee suuqan bartaas ayaan ka qaadan doonaa hadduu eeba qadaro oo dhaqaaqi waxaa waaye bartaas ayaan ka qaadanaynaa ilaa iyo targetkaas ayaan la socon doonaa. wuxuuna noo sameyn doonaa baataniskii ahaa head and shoulders. aad ujeedid, waad ujeedaa soomaan, laakiin waxaad sugaysaa ilaa isaga suuqa uu ku tuso ama uu kula hadlo uu ku siiyo confirmation sax ah ee aad ku qaadan kartid. weli waxaan joognaa 4 hourka, bal aynu fiirina meeshaan hadda wax ka dhal sell ah kaagama muuqdo, laakiin sideen ku ogaanaynaa in meeshaan rejection lagu soo sameeyey ee barta tanna uu ka kala wareegay suuqa, barta tan uu suuqa ka kala wareegay. sideen ku ogaanaynaa? waxaan ku ogaan karnaa marka si fiican u fiirso. suuqa waxaa lagu soo sameeyey rejection, bartaas ayaa laga soo celiyey suuqa. markii laga soo celiyey barta tan ayuu imaaday, markuu bartaan imaaday then bartaan ayuu wuxuu ka aaday buy. asleyna soomaan asoo u socdo barta taas. okay, bal aynu ku fiirino marka time frame-ka yar aynu ku fiirino oo ah 1 hourka, 1 hourka aynu ku fiirino. okay, waa ila socotaa ma filayaa. 1 hour aynu imaano. okay, 1 hour nagey kadibna inoo weynay. maxaad ujeedaa? maxaan ku idhaahda? fiiri bal meeshaan maxaa kaaga muuqdo. waxaa la rabaa taxliilintaada inay cilmi ku salaysnaato. haddii suuqan aa fahamsan tahay, no one can stop you to make money. qofna kaama hor istaagi karo inaad lacag ka samaysid, qofna kaama hor istaagi karo. fiiri bal fiiri meeshaan ku idhaahda 4 hourkan kasoo sameysay waxaan ku idhaahday rejectionka hoosaa looga soo celiyey, bartaan ayaa laga celiyey, wuuna suuqi bartaan ayuu ka dhaqaaqo oo candle qurux badan oo buy ah ayuu sameeyey. muxuu suuqu marka u socdaa inuu sameeyo? fiiri targetka laga soo celin karo ayaan rabaa inaan ogaado. fiiri targetkee laga soo celin karaa. okay, waxaan sameynayaa marka barta tan edhig swing loogu ugu hooseeyey ka bilow ilaa swing high gay. fiiri swing loogu ugu hooseeyey ka bilow ilaa iyo swing high. fiiri maxaa kugu aadan bartan suuqi intee laga celiyay? fiiri golden zonki arrowgan 4 hourka aan kasoo saaray kama badan soo ma jeed meesha laga celiyay
then targetkiisa intuu noqon doonaa targetkiisa wuxuu noqon doonaa barta tan target 1 bartaas ayuu noqonayaa haddii uu suuqa si toos buy u aado sidoo kale targetka labaadna wuxuu noqon doonaa barta tan goormuu bartan aadaya inuu soo laabto oo bartan soo retest gareeyo kadibna maadaama meeshan structure hore ay tahay oo sub resistance inay support isku bedesho kadibna bartaas uu ka duulo uu ka aado buy si uu usoo retest gareeyo maxaa la yiraahdaa targetka labaad haddii uu suuqa naqshadaasna siiyo insha Allah waxaynu sameyn doonaa barta taas ayaan kasoo qaadan doonaa selkeena inagoo ugu soo raacayno maxaa la yiraahdaa sel aad u qurux badan oo hoos usoo daata bartaas ayaan kasoo qaadan doonaa ilaa iyo waxaan la socon doonaa structureka kan oo trade line-ka isagoo suuqa sameyn doono hadhow meelahan ayuu wuxuu ka sameynaya markuu meeshan soo jabsado wuxuu sameynaya structureka kan uu imaado wuu laabanaya bartan ayuu ku laabanaya wuxuu sameysanaya wax loo yaqaano head and shoulder then head and shoulder markuu sameysto bartanna waa laga qaadan karaa entry kale waaye ilaa structureka kan waa lala soo socon karaa I hope in aad si fiican u fahantay suuqa ha iska gelin taxliili gacantaada fariisi cilmiga baro mar walba garsoor waxay diyaar u tahay in ay dhalinta Soomaaliyeed ay caawiso wixii ay ku dhaanto maxaa la yiraahdaa suuqan ay kaga khibrad badan tahay iyadoo aynu ku xireen maxaa la yiraahdaa wax shuruudo ah then insha Allah si aad taxliilintan ula socotaan mar walba fadlan kusoo biir page-keena telegramka ee aan ku dhigay description-ka hoose sidoo kale YouTube-keena kusoo biir oo si aad ugula socotid taxliilinta isbuuc walba si aad u heshid maxaa la yiraahdaa week walba lacagtii dhaqaaqa laga filayo subscribe deh asxaabtana la wadaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guul baan idin rajeynayaa